waxa aad loogu hanqaltaagaya oo saaka adiga suugaysaan inaan ka hadlo doorasho la isku haystaa waxaad maqlaysay Jubbaland oo leeyahay doorashadu ma rabtaa leeyahay ma dhacayso waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Jubbaland waxay u faradhuuban tahay inay doorasho waddanka ka dhacdo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya iyo meesha ay marayso waxa asal u ah isbeddelka siyaasadda ee dhacaya waxa asal u ah 4 bilood inay doorasho dhacdo oo cidii calafkeeda uu siiyo uu qaato waxa asal u ah dadku waxay ku heshiiyeen inay meel mariyaan taasana diyaar waxaan u maleynayaa saaxiibaday baa ka hadlay maanta khilaafka la isu hayaa waxa uu yahay war waxaan idhi waddanku doorashaha aado Jubbaland gobolay ka tirsanay maanta gobol dhan yaa Malaysia la soo ururiyay intii gacanta loo geliyay yaa maamulkii dawladda iyo ciidankii iyo dhowr iyo 10 sano dadkii dagaalka ku jiray intii laga soo bixiyay yaa waxa la qoladana maamulayso oo maxay maamulaysaa doorashada soo socotay inay wax ka qabado kuraasta taalahan u qaadan waxa yaa aqbalay waxaad ogtihiin wadada gaariga doolow ka baxa ee luuq u socdo 78 kiiloomitir isagoo qofna la soconin buu socon jiray iska daa balad xaawo iyo doolow iyo ceel waaqiya saasaa lagu kala soconayay maantana waxay gaadhay iyadoo weligood sabab canshuur ka qaadin inay irid walba ka qaadaan oo loo fudaydinayo isleedahay ciidanka dawladdu ay leedahay kii xuduud ka ilaalinayaan ay yihiin kuwa iyagu dadka dhibaatada u geysanaya mushkiladda sameynaya waanu wada hadalnay waxaana waraan isu tanaasulo oo mujtamac Soomaaliyeed baana fiirinaya oo hooyo agoon leeyahayna fiirinaysa oo oday indhalaba ayna fiirinaya oo mid gablanaana fiirinaya intaas cudur baa jirtay dalkaani sidoo ku badbaadi lahaa ka shaqeeyo taasaa keentay inaan intaan xamar rasuul nimaano intii oo shir galo la isu tanaasulo oo la gaaro waxa naga dhaxeeyay qabanayna ka wada shaqeeyo madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku waxay ku heshiiyeen in waddanka doorashada ay dhacdo xilligeedii ku dhacdo waxaan idhi war gobolka Gedo Jubbaland baa ka talisan heshiis baan gaarnay waxaan doonaynaa gobolka Gedo in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo maanta gobernatoore laga bilaabo ilaa intii gudoomiyayaasha ahaa hal midoo ka jooga malaha maalin walbana waxaad arkaysaa warqad la leeyahay gobolka Gedo ka soo baxday waa la qoray wax lagu sameeyo la waxa kaaga daran haddii calaamadda uu la toosinayo waxa ma ahaateen calaamadii lafteeda la qaloocinaya iyo calaamadii war waxaan rabnaa inaan Soomaali u sheegno inaanu nahay Soomaali horgalkeedii sababtoo ah maanta annaga Jubbaland Soomaali ah sababtoo Soomaali baanu kulminaa waxaan rabnaa inaan hooseeno doorasho xalaal iyo xor waxaan rabnaa mid lagu qanco ninka hadda musharaxa iyo ka madaxweynaha hadda fadhiya ka kulligood inay meesha wada galaan waxaan rabnaa ninka madaxweynaha inuu noqdo musharax laakiin processka dhexdiisa uu ka dhaco waxaan rabnaa Jubbaland inay la sinaato dawlad goboleedyada kale